مدح والفافين شركة إسقارسية سنتر أيام مركز كسول بيني يا صاحب إسكاي سول بيتنا واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مامورك إسكولك الأنفال معلمينتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مامورك دكسيغا هو صدح حسر الأنفال معلمينتا أرضيدا كو أبترستا إسكولك قايبتا دكسيغا هو سيد دكسيغا دحي ودكسيغا سرعينتبا waalidiinta ka soo qayb gashay munaasabadan aadka u quruxda badan ardayda maanta qalin bedelanaysa ee munaasabadan aan la damaashaadayno bahda saxaafadda guud ahaan inta ka soo qayb gashay munaasabada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan diiran kadib xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan munaasabadan idinkala soo qayb galno sharaf weyn ayay noo tahay. sidoo kale bahda iskuulka al-anfaalna waxaan nahay bahwadaag iyagoo munaasabad walba oo iskuulka qabsanaya nagu casuuma inaguna dacwadooda waan ajiibnaa si aan ardayda Soomaaliyeed ee qalin bedelanaysa munaasabadooda aan kala qayb galno. xaqiiqdii ma fududo in la dhaho ardaygan wuu qalin bedeshay oo marxalad mucayan oo kamid ah marxaladaha waxbarashada ayuu ka gudbay. waan ku faanaynaa ardaydan aad ku daada yar oo umru zuhuurka wax ka sii yar ku jira inay maanta qalin bedelanayaan iyagoo ay wax badan u harsan yihiin. maanta waxaad ka talaabaysaan waa marxaladda koobaad oo aan dhihi karno udubdhaxaad ayay u tahay nolosha ilaa ay dugsiga sare qofka markuu ka gudbo marxaladda koowaad ee bachelor degree-ga ayuu u gudbayaa. waxbarashada inteeda kale high education-kana bachelor degree-ga ayaa udubdhaxaad u ah halka dugsiga hoose dhexena uu udubdhaxaad u yahay qaybta dugsiga sare markuu qofka gabagabeynayo tacliinta. marka waxa dadka lagu kala fadilana waa waxbarashada. qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ma simin. ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuun. marka dadka wax yaqaano aqoon-yahanada ah iyo dadka aan wax garanayno jaahiliinta ah ma siman yihiin. marka waa ma sinno. adduunyada marka la fiiriyana ilaahay maqaamaad kala duwan ayuu nolosha siiyey. qofka marka ugu horeysa marka aad wax barato bachelor degree-ga ama masterka qaadato oo arday wax barayso ustaadnimo ayaad ka bilaabaysaa. haddii aad PhD ku darsato doctor ayaa lagu leeyahay. haddaa 10 sano khibrad ah macallinimo aad ku shaqayso ama majaal kale ilaa barofnimo aad u gudubto darajada qofka caloosha hooyadii kala ma soo baxo lama dhasho waa qofka wax uu ku gaaro dadaal. idinkuna waxaan idin leenahay ardayay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga ha ka daahin abidkiin al-anfaal kala hore u sii taga si aad waxbarashada quruxda badan leh aad uga qaadataan. maanta kale waxaa mahad mudan in la bogaadiyo sidoo kale halkan laga sheego mudan waalidiintii soo gabdaadiyay ardaydan oo inoo soo saaray gabdho iyo wiilal intaba oo aan leenahay waad mahadsantihiin aabbayaal iyo hooyayaal. laakiin waxaa inoo harsan in la garab istaago oo marxaladda koowaad ugu yaraan waxbarashada bachelor degree-ga ardayda ka bixisaan oo aad barbartaagnaataan. markaa kadibna qof waliba dadaalkiisa iyo kartidiisa ayay ku xiran tahay sidoo noloshiisa u maareeyo iyo sidoo uu waxbarashada ugu sii dhex jiro. ardayda qalin bedelatay iyana hal caqabad kale ayaa hortaagan. marka ay ka baxaan dugsiga sare waxay ku wareeraan siday u dooranayaan takhasusyada. waxaan idin leenahay insha allahu tacaala takhasuska aad dooranaysaan shuruudo gaara oo laga eega ayaa jiro oo 4 ah. marka ugu horeyso takhasuska aad baranayso waa inuu noqdaa takhasus aad jeceshahay attention aad u hayso. 2 waa inuu noqdaa takhasus aad awoodiisa leedahay waxbarashada yacni maskax ahaan aad ka bixi karto maadooyinka marka uu u baahan yahay. tusaalahan qofka rabo medicine inuu barto waa in chemistry iyo biology uu ka dhisan yahay si uu marka waxbarashadii medicine-ka u sii wado. qofka rabo inuu barto engineering waa inuu ka dhisan yahay mathematics-ka. hadba takhasuska aad u baahan tahay waxyaabaha maadooyinka asaasiga waa inaad ka dhisan tahay ayaa muhiim ah. shayga inaad jeceshahay maskax ahaan inaad ka bixi karto. jaamacaddu free maaha lacag la'aan laguma barto waa in aad iska bixin karto waalidka uu karo takhasuska aad danaynayso inuu ka bixin karo. markaas kadibna takhasuska wadanka aad joogto maanta oo Soomaaliya shaqo ma leeyahay ma ku shaqaysan kartaa. wixii hadaad barato inaad ku shaqayso ayaa laga doonayaa. wax dheef adiga aad ka hesho ehelkaaga aad ku maareyso bulshada intooda kalena aad ku maareyso. marka maadaama ay laga maarmaan tahay wax suuq kale Soomaaliya inaad fiiriso oo si aad bulshadii marka ugu faa'iideyso adigana aad ugu faa'iido.
marka waxaan isleenahay ardaydeena inay intaa wacyigelin fiican ay ka haystaan insha allah seminaaro la xiriira habka takhasusiyada loo doortana inay ka faa'iidi doonaan aan rajaynayo insha allah ay uga faa'iidaysan doonaan bahda iskuulka iyo jaamacadaha ka jira dalka intaba inay u fidiyaan ardayda fireeshka ay dugsiga sare markaas soo dhammaysatay xaqiiqdii halkan hadal badan kama furna laakiin waan xamaasaysanahay markaan arko arday qalin bedelanaya oo marxalad gaara ka gudbaya marxalad kalena u tallaabaya wuxuu mudan yahay in la dhiirigelin macnawiyeed iyo mid maadiyeed intaba uu mudan yahay marka waxaan idin leenahay insha allah dhiirigelin waxaa ugu qaalisan in dadaalka aad qabatay lagu garwaaqo oo dadku ay ku yiraahdaan waad mahadsantahay annagoo dhan waan garwaaqsannahay hawsha aad qabateen waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin waxaan rabaa hal su'aal iyo laba su'aal inaan ku darsado oo aan ugu talagalay ardayda insha allahu tacaala hal su'aal wiilashaan weydiinay hal su'aalna gabdhaha si aan abaalmarin ugu bixino markaa kadibna kelmaddeeda rasmiga inaan intaa uga tallaabo ayaan doonayaa haddaan ku horeysiiyo wiilasha waxaan doonayaa hal wiil oo geesi ah oo stageka yimaada si aan su-aasha u weydiino maasha allah haloo sacbiyo gabadhaa sacbaya mudanta bismillaah intaana jawaabta ku fududaanin waxaan u soo istaagay waxay tahay waxaan iska baarayaa kartida laga waayo wiilasha iscabiya muhiimadda maaha inaad su-aal qaladid laakiin waxaa muhiima inaad isku dayi kartid jawaabta haddaa qalda xataa waa iska noqon karaa laakiin waxaa muhiima inaad soo kici kartid aad dareenkaaga muuji kartid xaawta kaan dhigi lahay macalin waa mahadsantahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay si sax ayay uga jawaabtay waa xaawataako maasha allah gabadha walaasheen waxaan leenahay iskoorka aad wiilasha ku jebisayna waan kaaga mahadcelinaynaa wiilasha fursaddu way u furan tahay abaalmarinta gabadha ay ku guulaysatay semikaar ay ugu talagashay Somtel Soomaaliya iyo 6 GB oo data interneta marka waxaan leenahay hambalyo wiilashan u fadhiya ka badinayna qof soo istaagan doonaya weli fursadda waa furan tahay GB far badan aan ku bixinayna marka hore waa salaamantiin dhammaantiin walaashay ceeni maadaama ay xoogaan la guwaabisay aadaa u dhiirigelinaa so annagan cabsi meesha naguma reebin ee xoogaa cilmi baarisaa samaynayna haddaan isku dayo afartii halgame oo ka tirsanaa Israel amiin intaa ka xasuusta waa sheegi karaa cabdiqaadir nuur sakhaawudiin oo guddoomiyaha ka ahaa maxamed nuur siidi haddaan ku daro go ahead محمد نور سيدي مشاي عبد نور سخاوي الدين يا بارب ياسين على اسمان انه جرنا فيلا ثانك يو يو ديد waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay ma garan karo hablaha waxaan islaa iskoorka waa lagu jibinayaa laakiin weli iskoorka hablaha uu taagan yahay gabdhahayna si gaar ah u salaamin si sax ayuu uga jawaabay waa cabdiqaadir sheekh saqaawudiin cabdiqaadir sheekh saqaawudiin maxamed cusmaan baarbe yaasiin xaaji cusmaan inkastoo cali cusmaan uu dhaa magacaygu ku daraafilaya waayahay aad u mahadsan yahay afartaba si sax ayuu uga jawaabay isna waxaan ku abaalmarinaynaa semikaar iyo 6 GB ay ugu talagashay shirkadda maadaama ay soo dibdhaceen wiilasha waan ka yaraynaynaa waa mahadsantihiin ayaan leenahay xaqiiqdii waan jeclaa su'aalo fara badan inaan idiin weydiiyo laakiin duruufta iyo waqtiga aynoo saamaxaynin inaan idinkula soo qayb galno mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay munaasabadda xigta inta aan ku kulmayno iyo idinkoo faraxsan insha allah iyo arday cusub oo inoo qalin bedelata bahda alanfaalna ka qalin jebisa waa idin salaamaynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi